wararka naga soo gaaraya magaalada Mooyaale ee dhacda xuduuda Kenya iyo Ogaadeniya ayaa sheegaya dagaal khasaare dhaliyo oo halkaasi ka dhacay kaasi oo u dhaxeeya dadka Soomaalida ee ku dhaqan magaalada Mooyaale iyo waliba kuwa Oromada iyaguna ku dhaqan isla magaaladaasi Mooyaale dagaalada oo ah kuwa marar badan soo noqnoqday ayaa la rumaysan yahay in xukuumadda wayaanuhu ay hurinteeda iyo holcinteeda leedahay waxayna dagaaladu galaafteen nolosha dad badan oo shacab ah oo ka soo kala jeeda deegaanada lagu dagaalamayo iska horimaadyadii ugu dambeeyay labada dhinac ayaa la sheegayaa inay yimaadeen kadib markii kooxda Addis Ababa ay dadka shacabka ee Oromada iyo maamulka Mooyaale ee Oromada ku amreen inay laayaan dadka shacabka ee Soomaalida iyagoo garab ku siinay xasuuqa shacabka ma jiro wax dhexdhexaadin oo ciidamada wayaanaha iyo maamulku sheega ka jira deegaanadaasi ee labada dhinac ay ka sameeyeen dhulka lagu dagaalamayay waxaana la wadoogayaa in ciidamada gumaysiga Itoobiya ay kala safteen labada dhinac ee dagaalamaya ee Soomaalida iyo Oromada dad u badan oo shacab ah ayaa la sheegayaa in ay saacad kasta gaadhayaan deegaanka Mooyaale ee dhinaca Kenya halkaasi oo qaxooti ahaan loogu qaabilayo waxaana la filayaa in ay sii bataan qaxootiga xuduuda gudbaysa maadaama dagaaladii ay sii socdaan labada maamulku sheegay gumaysigu ka kala samaystay Ogaadeniya iyo Oromiya ayaa iyaguna dhankooda hanjabaad iyo handadaad dhinaca afka ay soo marinaya warbaahinada waxaana saacad kasta dhici kara dagaal lagu hoobto kaasi oo laga soo abaabulayo magaalada Addis Ababa